الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال iyo marwooyin waad mahadsantihiin aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa sida aad uga soo qayb gasheen xafladan oo ku saabsan caleemasaarka guddiga midnimada sacad kaas oo adeegi doona beesha sacad ee degmada Hobyo. gudoomiyaha midnimada sacad ku soo dhawaad Cabdirashiid Maxamed Axmed Saal. degmada Hobyo ee sacad xoogaa macnaha kala daadsanaan iyo tashilaan baan aragnay waana loo kacay waana bilow haddana waa macnaha anagu waa bilownay oday bay u furan tahay culumay u furan tahay dhaqan bay u furan tahay barnaamij kastana dad baa curiya war hamidoobinina ama tala meel dhiganina qofna ma dhihi karo waxaan aragnay magaalada horumar baa ka socda golo deegaan baa la dhisayaa wax walba oo imaanaya dee dadku haddaysan mid ahayn oo isa tashanna waxa weeye dhan kasta waa waxbaa sii ka noqonaya waxaan aragnoo kale in maseerkii magaaladan iyo waxgaradkii beesha sacad aysan meeshaan go-aankii ay goyn lahaayeen xamar iyo laga jaangoonayo gaalkacyo dad jooga waxaana keentay burbursanaanta waxaan aragnay in la isku qaldahayo mas-uuliyiinta qaarkood oo beesha sacad sheeganaya inay isku qaldahayaan maalgashigii Hobyo la maalgashan lahaa iyo deegaankii dadka deganaa inay isku qaldahayaan oo idaacadaha ay ka hadlayaan taasna waxaan ka leenahay waxgarad intaas idinku filan aad u jeedaan Hobyo joogta waxgarad beesha sacad waa jooga cid alla cidii maalgashanaysa Hobyo waa soo dhaweynaynaa tafadal laakiin waxa weeye deegaanka ilaahay deegaan kasta dadka uu ku beeray qabiil baa loo degan yahay qabiil kasta meel baa ilaahay ku beeray Hobyo waxaa degan qabaa'ilo fara badan baa degan laakiin waxa weeye ninka maalgashiga iyo isku qaldahaya deegaanka ka hadlaya ha isku qaldin baa dhihi lahayn maseerka Hobyo wuxuu ka go'aa dadka deegaanka qabiil kasta ha noqdo gaar ahaan annagu hadda meeshaan sacad baa macnaha midnimo ku samaysanaya wixii sacada oo Hobyo anigu waxaan oran lahaa jaangooynteeda iyo maseerkeeda ka hadlaya Hobyo joogaan guddiga midnimada sacad waa soo dhaweynaynaa haddaan dumarka nahay haddaan odayaasha ay yihiin inta Hobyo ku nool annaga kulleyba haddaan qaasatan dumarkeena gacan weyn ayaan jecelnahay inaan ka geysano midnimada waa rabnaa waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay dadka naga maqan iyo dadka Hobyo u dhashay iyo dadka joogaba gacmo wada jiray wax ku gooyaan magaaladiina imaada maalgashada xagga dekada xagga magaalada wax walbeeto oo bilico oo Hobyo u baahan tahay waxa ay ka sugaysaa waa dadkii u dhashay ya wadan qofkii u dhashay uu wax ka qabanayna cid kaleeto oo rabta lama arko marka waxaan leeyahay gacmo wada jir bay wax ku qabtaan walaalayaal aan isweeshano walaalayaal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh raggaas sharafka leh oo dalka wanaajiyay oo wadanka wax u qabanaya waxaan annaguna codsanaynaa adduunweynaha ganacsatada hadday sacad tahay hadday Soomaali tahay hadday Hawyo tahay wixii dalkaasaas loo wanaajiyay oo dhalinyaradu u istaagtay oo wax loo qabanayo inay ayaguna barbarkooda hadday bad tahay hadday biri tahay inay wax nooga qabtaan oo sidaa qurxoon oo socota oo qabiilnimada ah baan ku soo dhaweynaynaa annaka dhan gacno furan ku siinaynaa ninkii maalkeena ninkii codkeena ninkii calafkeena annaguna waa soo dhaweynaynaa gacno furan baan ku soo dhaweynaynaa ragga adduunka wixii jooga oo hantila ah oo ganacsato ah intay dhul shisheeye wax u dhigi lahaayeen waxaan doonaynaa dhulka dhalinyarada u kacday oo tolku u istaagay oo maanta wax qabadku uu bilowday oo quruxdu ay muuqato oo aan wax qarsoon ahayn oo aan ku faanayn waxaan doonaynaa inay ayakuna sidaa ugu dadaalay oo wuxuu doonaynaa inay ayakuna wax u doonaan dalka nala qabtaan qodob kale wax ma qaban karto ciwaanka dhabarkeena ku qoronna aad buu miisaan iyo mug iyo macno u leeyahay waxaan leeyahay walaalihii gogasha dhigana aad bay u mahadsan yihiin haddii mawduuca soo gogasha soo dhigana waxaa la rabaa inuusan gacanta ka bixin
walaal yimidna wax loo dhibin walaal maqanna wax loo dhibin midka joogaana uu ku qanco munaasabadu saasay macna ku yeelan kartaa walaalihii soo abaabulay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin Allah idin barakeeyo tolka sida mugga iyo miisaanka laga soo qayb galan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin inta maqli doontana waxaan codsanayaa war ay ku qancaan iyo wax qabad ay ku qancaan iyo waxay shirtaan inay meeshaas ka soo baxaan waan codsanayaa haddii alla qadaro aniga ka cismaan ahaan muddo yar kooban baa hobi joogaa intaan baana la hadal wadaag ahay wax gaaranay abuuray yihiin maahi mana rabo dhinacyo badan isriixriixaya inaan qayb ka noqdo ma rabo waxaan soo dhaweynayaa ciwaanka halkaa ku qoran baa ifiitadana ii keenay inay kelmadda ogolaadaan intaas ay ugu khasabtay tolkana waxaan leeyahay nin jooga hadday u laqsami weysana si deganood istiraax ku jiro wanaagsan ha u soxo walaalkiis nin maqanna waxaa la rabaa goobtaan ku matalnaa xafladaan ku matalnaa kelmadaan ku matalnaa si micno leh iyo war macno leh inuu gaaro haddaan u soo laabto hobyo deegaanada ilaahay samaystay bay ka mid tahay qolabana dad baa ilaahay makaniyo dejiyey isbeddelkuna wuxuu ka yimaadaa dadka dhulku waa dhul ilaahay shirkan maxba magac bay leeyihiin waxaa loogu magac bixiyey oo calwaankiisa ku taal beesha reer Sacad midnimadeeda ku taal waa soo dhaweynaynaa beesha reer Sacad midnimadeeda waa soo dhaweynaynaa dadku inuu midoobo walaaloobo isku mid noqdo faa'iido badan bay leedahay beesha faa'iido u leedahay hatta dadka dariska ah la degan faa'iido u leedahay dad midaysan nabadda faa'iido u leedahay wax qabadka faa'iido u leedahay marka midaas baan aad waa wanaagsan tahay wax wanaagsan weeye waxa intaas wehliya mar haddii la midoobo waxa la rabaa in laga fogaado wixii keeni kara turxaan iyo dib kale keeni kara in laga fogaado qof walba mas'uuliyad is saaro midnimadu waxa ku imaan kartaa beesha reer Sacad way tiro badan tahay qof walba martabad buu kaga jiraa qof walba martabada iyo haykalka uu kaga jiro in lagu xaq dhowro oo lagu tixgeliyo oo lagu ixtiraamo way ku imaan kartaa dad baa meesha magac maamul ku jooga dad baa magac maaragtay oday dhaqameed ku jooga iyo macnaha nabadoon dhalinyaro hooyooyin maamulka hadda leeyahay oo lagu dhawaaqay kullu dhammaanba waxa rabaa qof in la istixgeliyo qof walba martabadiisa in lagu tixgeliyo lagu maaragtay ixtiraamo saasay ku imaan kartaa anigoo ku hadlahaya guddiga midnimada Sacad waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed dhammaan inay ku soo dhawaadaan oo ay maal gashtaan degmada Hobyo waxaan baaq halkaan uga dirahayaa oo kale siyaasiyiinta iyo waxgaradka banaanka jira oo iskaga qaldan tahay maalgashiga dekada Hobyo iyo deegaanka degmada Hobyo inay kala saaraan laba siyaabo ayay kala yihiin waxaan doonaynaa inaysan isku qaldin oo ay dadka isku dirin dad waxaan maqlayay siyaasiyiin isku sheegayay magaca Sacadna u dhashay oo dalka dibadiisa jooga dalka gudihiisana jooga oo raba inay dadka isku diraan oo leh dekada Hobyo waxa maal gashanaya ninkii deegaanka ka hela deegaanka waa la wada degan yahay waana la wada leeyahay laakiin maaha in la isku qaldo maalgashiga dekada Hobyo iyo deegaanka degmada Hobyo waa in la kala saaraa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.